مسؤولين كترسن جالية جبلان دلك كينيا ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose. Mas'uuliyiinta ayaa halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay sida uu ku soo waramayo Axmed Toronto oo Dobley nooga soo warama. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaaliyada Jubbaland ee dalka Kenya ayaa soo gaaray magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaana kulamo la qaadanayaan maamulka magaalada Dobley iyo bulshada qaybaheeda kala duwan socdaalka mas'uuliyiinta jaaliyada Jubbaland ee dalka Kenya ayaa la filayaa inay socdaalkooda ay ku tagaan deegaano badan oo ka tirsan gobolada Jubbooyinka waxa ugu horeyn la hadlay TV-ga dawladda Jubbaland aasaasigii jaaliyada Jubbaland Nuur Wali Xirsi oo ku magac dheer Nuurugaas iyo agaasimaha jaaliyada Axmed Cabdi Kaaradile oo maartay dad Jubbaland la yahay oo caalamka meel walba lagu kala nool yahay waxaan go'aansanay inaan dalka Kenya gaar ahaan Nairobi aan fadhiin ee aan soo ogaano xaaladda mise maartay mowqaca dhabta ee ka jira dhammaan Jubbaland oo marka hadda aanu ka bilownay magaaladii maartay ugu horeysay ee maartay gacanta lagu qabtay magaalada Dobley run ahaantii Dobley oo maartay magaalo istiraatiiji ah oo maartay wax walba leh haddana saa ay tahay maartay waxaan go'aansanay inaan Dobley soo gaarno oo maartay bulshada qaybaheeda kala duwan aan la kulanno haday tahay gudoomiyihii baan la kulannay qaarkoodna way noo dhiman yihiin haweenkii baan shirin doonaa insha Allah oo la kulmi doonaa hortii dhalinyaradii waxa soo dhan baan rabnaa bal xaaladda Dobley ka jirta ee dhabta inaan ogaano hadda security dhinaca nabadgelyada kale ma sha Allah aad baan ugu qanacnay habeenkii waad aragtay 7 saac habeen 6 saac habeen ma soconaynaa caafimaadkii waad aragtay isbitaalada waa shaqeynayaan ciidankii nabadgelyadii ma sha Allah alxamdulillah waan leeyahay Dobley run ahaantii waxaan leeyahay amnigeeda iyo nabadgelyadeeda waa 100% iyo sidii aan filayna baan leenahay Toronto in badan baan isku daynay jaaliyadan Jubbaland dalkan Kenya inaan xiriir badan aan la sameeyno haday East Africa tahay iyo haday tahay Europe iyo Mareykanba run ahaantii hadda xiriir jaaliyada Jubbaland si rasmi ah uga dhaxeeyo waxaa jirta jaaliyada Uganda oo maartay social media aan ku wada xiriirno oo maartay si fiican uga wareyno iyo jaaliyada Mareykanka ka dhisan iyo midda UK ba si toos ah wada xiriirna hadda social media tahay iyo haday maartay xiriir kala tahay waxaan u qorshaysan doonaa magaalooyin ay ka mid yihiin Afmadow Garbaharey Kismaayo Doolow magaalooyinka Jubbaland dhammaantood inaan marnaba dhalinyarta anaga oo jaaliyada inaanu tagno waxa xusid mudan jaaliyada Jubbaland dalka Kenya markii ay ka soo dhalashay wixii looga baahnaa ee Kenya ah wax qabada inay hadda isu diyaarinayso inay ka qayb qaadato hawlaha wadanka gudihiisa dhulkii hooyo inaan nimaano oo wixii loo baahnaa hadii dalka xoreyntiisa ay tahay oo ka qayb qaadano haday tahay qaybtii dhalinyarta iyo baraarujinta aanu nimaano oo wadankii aanu ka qayb qaadano hawlaha baraarujinta u baahan yihiin inaanu nimaano kaca fadhiga ka kaca madaxweynaha waxa xusid mudan iyo madaxweynaha inuu yiri guluf ka jira guluf dagaal oo lagu qaadayo ururka al-shabaab gulufkaas yarta jaaliyada Jubbaland ka qaado oo dadka ugu horeeya noqono ay ka qayb qaadanayo aadna waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dadaalka ay wadaan had iyo habeen bay la garab taagan yihiin ummadooda annagana waxaan leenahay madaxweyne ku-xigeen dhammaan ummadda reer Jubbaland annagana garabkiina nahay hadaan jaaliyada Jubbaland dalka Kenya dadaalkaas aan idin garab taagan insha Allah kasi daraan lahaydba marka halkan horta waxaan ka salaameynaa madaxweynaha ku-xigeenka dadaalka ay sameeyeen ugu jiraan inay ummadooda ay ka qabtiraan baahida jirtay dhinac kasta haday ahaanay dhinaca nabadgelyada haday ahaanay dhinaca nolosha dhinac kasta si isugu dayayaan inay ummadda ka qabtiraan baahida jirta aad baan u salaameynaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Mubaarak waxa xusid mudan madaxweynaha inaan magacaas jaaliyada Jubbaland ay iyadu iska leedahay u bixisay Axmed Mubaarak waa 13 September 2015 magacaas loogu wanqalay marka Axmed Mubaarak magacaas jaaliyada Jubbaland baa siisay marka saasaan leeyahay madaxweynaha adigana si gaar ah ku salaameynaa garabkaaga Allah galo annagana garabkaaga insha Allah waxaan aad u salaamayaa shacabka reer Dobley soo dhaweeyntooda waxaan weligiiba iloobayay hadda waxaba ay haysaa meeshan iska degtaaba si ay soo dhaweeyeen macnaha aad baan ugu farxay una qanacsanahay waxaan kaloo salaamayaa dhammaan madaxda reer Jubbaland ugu horeeyo madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam Axmed Mubaarak iyo madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo all cabinetkiisa iyo dhammaan ciidanka qalabka siga maartay Jubbaland aad baan ayaga u salaamaya waxaan Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto TV-ga dawladda Jubbaland Dobley